هم راي أحد يدي وديها مهاركي دار عرتيني حتى اللي مموتيها لما لقيت هم راي أحد يدي وديها يوجو ريتي يهلي عاشقو مهال كان فريسا مالك يوجو ريتي يهلي عاشقو مهال كان فريسا ميكروفون كقاعد لوغada iska صوري اوكي كيكا لكن بدل بانسي لكن يوم يقولون وين وصلنا ان شاء الله يقولون وصلنا هنا شن يستدر أواران يا حبيبي خلاص يستدر بان يسمعنا أيوه كلهم ماشي برواقة يعني أنت يسكون كي تري الله الله ما نكابته إلهي بام هذله والله ودك والله نبض قبا جود هان تجارنا هانيد أبار ayaa wadda ka joogta waa la kala guuro dadku aad buu guuray afarta dhanba waa la kala guuray iskuulku waa yaraaday oo dee wax fiidina muu lahayn oo carruurtu way raacay reerahoogii wax dee Itoobiya tigiyo wax galbeed iyo wax xaalo togay baa afarta dhanba loo kala kacay haddana alxamdulilaahi dee in badan baa imika xogay baa iska sii yaallo intaas waa si fiican baa u dhigata abaar tu xoolaad iyo tu dad labadaas kulmay sanadka ana hore u arki jiray labadaa ayaa sanadka kulmay biyaha bargad wadana loo keenay looyoga qaar baa ku soo aroori kari waayo inta gaar xmaar loogu shubay xiradii loogu geeyay inta waqooyi la geeyay ninka shaqada tuma lahaa inta tumanka ka dhinteen shantii soo noqday waa lagu geeyo waa dhacdo dee waa wax laga war hayo weey xaaladda meesha imika abaarta wax ka ba'an ma jiro xoolaha baqteertii marka xoolaha waqooyi loogu la geeyay way madheeniyo haye wixii geelay joogay adoo imika geedka deegagan cunaya mooyaana wixii dalagii dhulka ka soo bixi jiray ayaa sanadka la waayay oo biqlinba ma sanadkun ba abaartu mise waa muddo badan waa adoo sanadka kal hore qudhiisa galinkii dambe adoo laba abaarood isdaba taagan bay ayaa ahay bal ka waran dhinacan caafimaadka waxbarashada maadaama aad tiri abaar baa jirta baahiyaha kale ee dhinaca bal ka waran asaasiga xaggan waxbarashada xagga caafimaadka adoo way caafimaadka dhakhtarka waa la dhisay wuu dhisan yahay alaabtii waa la soo dhigay weli shaqadiisa ma furmin oo nimika diyaar u nahay MCH qalabaysan baa ka dhisan meesha dhisay qaramaysan baa ka dhisan dadku imika halkay ka helaan adeegyada caafimaadka waxa imika laga helaa imika adoo weli loo furinay xagee laga helaa halkee loo geeyay dumarka umulayo kale ama qofkii xanuunsado kale halkee la geeyay
waxa la geyn jiray imka Hargeysa haye oo gaarigu haduu roobto oo lafteeda uu dhexda kula fariisanayo halka mushkiladu ma naga haystay laakiin ka imka la dhisay caanolaha soo shirkiisa aad helayn boo haduu ruux kala xanuunsado aan xagga la geyn kari ayaa lagu qaadi jiray wax gaariya ma naanahay marka imka kan waa kaga marmaysan kaga marmaynaha aad iyo aad waxaad ka warantaa xagga beeraha oo kale bal ka waran dalagii beeruhu sanadka muu soo goyn baa tirsan ma soo goyn sanadka ma soo goyn sanadka waa abaarta arkaysan indina baar geel loo guuray marka bal deegaama cayiman sheeg waxa loo guuray lafa islaamadoo kale reerihii badbaa tagay tugwa jaalo oo kale badbaa tagay adoo labada waxood u badantay iyo waqooyi halkan imika xoolo ma jiraan miya xoolo waxa jooga waxyaba si jooga geeli wixii geelaha u jooga marka xoolo kale imika ma leeyihiin manaafacaad iyagu maxay qabaan iyagu maadaama ay warturtamay geedka cunaya mooyaane wixii caleen ama cuni jiray la tabco la soo saaro ama doog cuni jiray ee ariyo looy isagu ku daayay dawladda wax kaalmaha ma ka hesheen intii abaar jirtay wax biyaa ayaa laba goor min laba boodod oo dadku la warwaraabiyo wax xoolaha waxba ka tireen ayaanu ka helay marka biyo kale ma jiraan oo imika deegaanka geelo kale u kacba geelo kale ceel boorra haye xaq waa lora ceelka arabsiyo laas xidhaan oo ceelasha hoose ee deeg xagga Hargeysa ayuu lora biyo ku filan marka kuwii la idin kala kala mid ku filan dalmayso way nagu filan biyaha waan iska gaarsiinune nagu filan karaan waxaan cabnaaba marka afka loo qaybiyo reeraha oo kale laba maalmood halkee marka imika biyo laga helaa madaba tirida biyalaan baa biyaha waa la shubtaa booyadaan loo keenaa arabsiya ka keenaan meel kale baa ka keenaan riigaga iyo waxa halkee marka ay arabsiya ay keenaan imsa sida la idinka siiyay booyada waxa laga siinaa 600 oo laana 600 oo laana waan gartay dadka marka ma iibsan karaan biyaha inta laga iibsan karaan in dhowr qoys ku darsan mooyaan dadku aad buu tal gabay in bood kaliya shuban karee ku yaryahay marka meesha meel kaydado oo biyaha lagu shubto ma jiraan marka hore dadku waxay ka heli jireen ilaa biyaha ma barkada jira tayir baadii jirto balayada markay buuxsamaan baa bacal laga warin jiro dadku xoog haysta ayaa bacaha inta dhulka qodaan baa bacahan biyaha ayaa dhigi jiray kaasa dabata ijin lagu shubi jiray amba roobka loo dhigan jiray maga daamaan roobkii dayreed iyo kii kala raba weynay sanadka biyuhu weeyri halkan waxa jiray dhaam baa jira aan halkan ku aragnay weyn dhaamkaasi biyihii maxaa dhaamka uga qabyada waa habsaamay dhaankaasi isagu waxa ka dhacay adu hay'adii qodisi way ka baxduno dhaamkii waa fadhiyay dawladda mal kala hadasheen ma u bandhigteen in badan waan ka hadal waa la soo eego ku joogto marka waan ku qoob taagan u beeladeen raadkiisanu haynaayo waanu qodi doonaa bacidina oo taada aad balmaas deegaanka daarta waxa ku tirsan degmada Farweyne dhinaca degmada iyo isku xidhnaanteedina iyo ka waran maamulka degmada isku xidhan degmada Farweyne san isku xidhan aad iyo aad buu fiican haye halkan uu joogay maanta weyd noo yimid Faysal Maxamed Jaamac gudoomiye isagoo qolqol culimaa la socda oo abaarta eegaya laba bood biyaan uu noo keenay maanta san ugu dambeysay dhinaca nabadgelyada marka degto bal ka waran nabadgelyada aad iyo aad buu fiican boolis malada deegaanku ama askarsi aad iyo aad baan ugu baahanay صح inuu gudida askarti caawin lahaydee amba laba haato amba mid baa haatee ayaan aad ugu baahanay waayo way nagu dheeraataa marka amba waxay laba qof nabar ku kala dhaco muujinto kale Farweyne oo 2 saacadood lugeen intaas waa nagu dheertay صح marka waxaan u baahanahay rug yaro caafimaado waxaan jeedaa rug booliso laga qoro daawac muujinta markaan wax u baahanahay si degdeg looga qoro oo degmadu ka tirsan iyo askari joogta haddii cashuuraado kala yimaado oo gaarigu ku dhaafo deena shicib waxa ma qaban karo taa lafteeda waan gudbinay arrinkaas oo gudoomiyaha uu sheegay marka waan ka soo shaqeynayaa si uu nagu yiri wali nabaseen ma soo gaar صح halkan marka trool baa marka cashuura maxaa qaadaysan cashuurta waxa weeye tii soo gelitaanka Itoobiya xoolmay ka soo galaan ayaa loo jiray boog صح markaasna waa abaaro waxba ma maraan laakiin boog waa yaala intaas laakiin yar dhiman dhinaca beeraha kala cashuur ma bixiyaan dadku cashuurta waa loo hadal qaadnay abaartii sanadku ma la kala sabo waxba wadanka lagu hayo baa la yiro wala gudday kala hore la soo saaray bishan junu bishii waad maasanta Here is a Magala Darta village, which is one of the most devastated by the war. These are the inhabitants, and the inhabitants that has been demolished all they did belong in the past. There are the houses
that the inhabitants has lived in the previous days before the civil war of Somalia. The 1988 civil war and that the SNM was leading. This was one of the most hot areas, one of the most important places that the war was even taking place. The SNM has launched here, and the Siad Barre regimes were ever following from Hargeisa to this side, waiting and willing to defend the SNM. The village has now got MCH, and the MCH has been reconstructed. The school is also constructed, but the dams, the water dams, are all demolished and require reactivation and rehabilitation at the moment. waa qabiyo muddo imika 4 sanadood 3 sanadood Over the years that the SNM government has been built, the damaged square has never been reconstructed and never been rehabilitated and require a complete rehabilitation. The school is already constructed and children are studying. The children are studying. Over 120 children are studying in the school. There are around 4 teachers that do train and work in the school. But one of the teachers require the salary that must be provided also by the Ministry of Education. All the rest, the other teachers are provided with the salary, and that is what the inhabitants also thank to the government of Somaliland. The other point is about the road construction. This village lies around 40 kilometers from Hargeisa and require a road construction, because it takes a lot of time to go all the way from Hargeisa here. There is a book that the village has worked out and provided and prepared. This can be seen, can be read, though it is written in Somali, but will be truly translated into also English. And then organizations, agencies, and the donors can even read, so they will be able then to understand all that they can do to the village. What about the book? The book will be translated, will be read, though it is written in Somali. That is what all the activities required by the community at Magala Da'arta requires, and they have planned what they are in the long term going to do. Now they are preparing to have grown trees. The trees is also from their own pocket, but they require where the children would play at the school. They require some support. They have the house, they have some money, and they have the activity that they are also performing their own, but they require some support. And any support provided by the government, by the organizations, by the donors, will highly be appreciated. Thank you so much. waxyaabaha soo saarka deegaanka maxaa ugu fiican ama beeraha oo kale xoolaha If I even explain about the growth, people here do not work hard about farming. They normally take care about the livestock. Livestock growth is really so important in Magala Da'arta area.